barnaamijkeena xogta dahsoon waxaynu ku dahqaadaynaa oo ku kala saaraynaa aragtiyaha ku gadaaman soo ifbixii cudurka AIDS-ka iyo qisooyinka tilmaamaya inay Mareykanku ku lahaayeen faafitaankiisa. waxaa halkaa aragtiyo badan oo laga aaminsan yahay sidii uu soo baxay fayraska HIV ee baabi'iya unugyada difaaca jirka isla markaana sababa cudurka lagu rogmaday ee AIDS. in cudurkan yahay mid la sameeyay markiisii hore ayaa loo haystaa inay tahay aragtida ugu badan ee laga qabo cudurkaasi oo baabi'iya difaaca jirka aadamaha isla markaana sababaya inuu qofku awoodi waayo inuu ka hortago ama iska daweeyo xanuunada kale ee asiiba isagoo qofka ay ka soo baxayaan nabaro iyo barar joogta. cudurka AIDS-ka waxaa laga aaminsanaa inuu sanadkii 1980 lagu arkay wadamada Brazil iyo Mareykanka, laakiin bilowgii cudurkaasi waxa uu dib ugu noqonayaa sanadkii 1908 xilligaa uu ka bilaabmay dhulka kaymaha leh ee koonfur bari dalka Cameroon, halkaas oo nin ugaarsata ay qabsaday daayeer qabay fayraska HIV ee waxyeeleeya difaaca. kadibna markii uu daayeerka qabanayay uu jirka ka xigtay oo ay labadooda dhiig istaabteen, taasina ay keentay in fayraskii daayeerka ku jiray uu u tallaabo ninkii ugaarsatada ahaa. kadibna uu fayraskii isu bedelay HIV oo noqday mid baabi'iya unugyada difaaca jirka ee aadamaha. cudurkaasi ma noqon mid ku ekaada ninkaasi, laakiin nasiib xumo waxa uu maalin walba qaadiyay tallaabo horleh oo uu ku faafiyey, isagoo intii u dhaxaysay 1910 ilaa 1920 u tallaabay haweeney kale. intaa kadibna waxa uu noqday cudur isaga tallaabayay hadba xuduudda uu doono ilaa uu ka soo gaadhay caasimadda dalka Congo ee Kinshasa. gaadhitaankiisii halkaasina waxa uu la sii baxay laafiyaha, isagoo faafitaankiisu ka sii fududaaday sidii uu ku socday markiisii hore. cudurkuna fursad qaali ah uu ka helay irbadaha la isku duro oo midiiba ay dad badani wada isticmaali jireen waqtigaasi. intii u dhaxaysay sanadihii 20-meeyadii iyo 30-meeyadii ee qarnigii ina dhaafayna cudurka AIDS-ku waxa uu isaga gudbay guud ahaan dalweynaha Congo, halka sanadihii 60-meeyadiina uu noqday mushkilad caalami ah kadib markii cudurkaasi gaadhay waddanka Haiti oo daris la ah Mareykanka. xilligaana ay Spain gumaysan jirtay oo sidoo kalena ay soo baxday in dadka la nool mukhaadaraadku ay isku duraan irbadaha iyagoo koox dhami wada isticmaalayeen irbad keliya. waxaase mar kale faafitaankiisu samada kusii shareeray hanaanka dhiigisu shubka oo dad badan oo ka caafimaad qaba cudurka ah laakiin xanuuno kale hayee ama si kale u dhiig baxay lagu shubay dhiigu la socdo fayraska HIV. hooyooyinkii cudurka la noolaana ay u gudbiyeen ilmahoodii xilligii ay jaqsiinayeen. caalimka dhanka caafimaadka ee u dhashay waddanka Mareykanka David Quammen ayaa faallooyinkaasi waxa uu ka sameeyay cudurkaasi gaar ahaan sidii uga soo bilaabmay daayeerka iyo sidii uu markii dambe ku soo gaaray qaaradda Ameerika, waxaana uu wax kaga qoray buuggiisii ugu magac daray daayeerka iyo webiga. sanadkii 1969 HIV/AIDS waxa uu ka soo gudbay dalka Haiti isagoo gaadhay dalka Mareykanka. hase yeeshee dadka ka soo horjeeda aragtida dhakhtarkaasi waxay aaminsan yihiin in HIV-gu markiisa horeba uu yahay nooc ka mid ah maadooyinka biologiga isla markaana ay sameeyeen Mareykanku, qaybna uu ka yahay saanada uu kula dagaalamo basharka aadamaha intiisa kale. Mareykankuna waxay fikradda oo ka soo baxday caalim dhanka biologiga ku sheegeen inay tahay mid uu caalimkaasi ugu dareynayay maslaxadda dalkii Midowgii Sofiyeeti, waxaana ay ku eedeeyeen ninka fikradda lahaa inuu ahaa basaas u shaqeeya hay-addii sirdoonka ee KGB.